xilligii dheeraa ee ay taariikhda carbeed iyo ta islaamkuba soo jireen waxaa iyana jiray boqortooyooyin soo xukumayey bulshooyinkii kala dambeeyey kuwaasoo aynu barnaamijkeenna ku dahqaadayno xilliyadii ay dhisnaayeen iyo sababihii ay ku dumeen. waxaa boqortooyooyinka ka mid a boqortooyada aala sacuud oo dalka sacuudiga soo xukumaysay 84 sannadood, waxaana qaabka ay maanta tahay u aasaasay boqor cabdicasiis bin cabdiraxmaan aala sacuud kadib markii uu sanadkii 1932 si kama dambaysa u mideeyey mandaqadaha ay ka kooban tahay boqortooyada sacuudiga, iyadoo xukunkii boqortooyadaasi uu ilaa maanta sii socdo. waxaa kale oo ka mid ahaa qoyska bani haashim ee boqortooyada urdun ee dalkaas soo xukumayay muddo 95 sannadooda, iyadoo qoyskaa dhalashadiisu dib ugu noqonayso qabiiladii bani kanaana ee reer bani haashim. waxaana qoyska reer bani haashim ay xukumayeen qayb ka mid ah dhulka xijaas laga soo bilaabo sanadkii 967 taariikhda miilaadiga ilaa sanadkii 1925 isagoo aan xukunkoodaasi marna kala go-in. kacdoonkii ay carabtu kaga hoos baxday xukunkii cusmaaniyiinta ayaa qoyskani bilaabeen xukunkooda dalka urdun sanadkii 1921 iyadoo boqorkoodii u horreeyey uu ahaa boqor cabdallihii koowaad. qoyskaa xukunkiisuna waxa uu sii socdaa ilaa maanta oo uu boqor u yahay boqor cabdalla ibnu xuseen ibnu dalaal. qoyskii khawaarismiyiinta ayaa muddo 143 sannadood soo xukumayay boqortooyadii khawaarisma oo ka hana qaaday dhulka loo yaqaano webiga dhabarkiisa, waxayna ahaayeen qoys muslimiinta sunniyiinta ah oo ka soo jeeda dalka turkiga. waxayna soo xukumeen dhul ballaaran oo ka tirsan aasiyada dhexe iyo galbeedka iiraan, isagoo suldaankoodii u dambeeyey ahaa suldaan jalaaladiin al khawaarismiyi oo isagoo dagaalamaya lagu dilay colaadii safmarka ahayd ee manguuliyiintu ku soo qaadeen caalamka. qoyska calawiyiinta ee dalka masar soo xukumayay muddada 147 sannadooda ayaa ahaa qoys asal ahaan ka soo jeeda dalka albaaniya, laakiin xukunkoodu ku xidhnaa markii hore boqortooyadii cusmaaniyiinta. waxaana boqortooyada calawiyiinta dalka masar ka aasaasay suldaan maxamed cali baasha sanadkii 1805 markii uu ka goostay boqortooyadii cusmaaniyiinta oo uu la galay dagaallo lagu hoobtay, iyadoo ay caruurtiisii uga dambeeyeen xukunka masar oo ay sii hayeen tan iyo sanadkii 1952 xilliga ah oo kacaankii saraakiisha masar ay inqilaab ku soo afjareen xukunkii boqortooyo ee dalkaasi ka dhisnaa. qoyskii ayuubiyiinta ayaa 162 sannadood soo xukumayay dunida carabta badankeeda intii lagu jiray qarniyadii 12aad iyo 13aad ee miilaadiga, iyadoo dowladdii ayuubiyiinta uu salaaxadiin al ayuubi gacantiisa kaga aasaasay gudaha dalka masar. laakiin markii uu salaaxadiin dhintay dowladdaasi waxay u qaybsantay 5 dowladood oo ay kala hogaaminayeen 4 wiil iyo ninkii ay walaalaha ahaayeen ee la odhan jiray caadil, kuwaasoo fadhiisimo ka kala dhigtay magaalooyinka xalab, dimashq, xamaa iyo masar ilaa uu xukunkoodii oo dhani soo afjarmay sanadkii 1342. dowladdii faadumiyiinta oo muddo 262 sannadood xukunkooda soo jiray waxay ka mid ahayd dowladihii khilaafada islaamka soo mara, waxaana ahayd dowladda keliya ee madhabteedu shiicada ahayd. waxaana aasaasay cubaydullaahi mahdiy sanadkii 909 taariikhda miilaadiga, waxaana sanadkii 1711 ugu dambeyntii dowladdaasi ay ku dhacday dagaalkii uu kala horyimay suldaan naasir salaaxadiin al ayuubi. qoyskii bani umaya oo ahaa qoyskii ugu horreeyey ee boqortooyo islaamaha aasaasay ayaa xukunka hayay muddo 288 sannadooda, iyadoo qoyskani xukunka islaamka qabtay kabacdi xukunkii khulafada raashidiinta. waxaana dowladda umawiyiinta magaalada dimashq ka aasaasay macaawiyatu bin abu sufyaan sanadkii 662 miilaadiga, iyadoo xilligii uu dowladda hoggaankeeda hayay amiirkii tobnaad hishaam cabdilmalik ay dowladdii islaamku gaadhay masaafadeedii ugu ballaarnayd, taasoo bari ka gaadhay dalka shiinaha, galbeedna xuduudaha dalka faransiiska. waxaase ay dowladdaasi duntay sanadkii 750 markii ay kacdoon hubaysan kala kulmeen cabaasiyiinta, iyadoo amiirkii u dambeeyey ee umawiyiinta cabdiraxmaan bin macaawiya ka baxsaday dimashq markii ay cabaasiyiintu gudaha u soo galeen. cararkaa oo isagoo keligiia ku gaadhay dhulkii andalus ee qaaradda yurub oo uu dib uga aasaasay xukunkii umawiyiinta, halkaasoo ay caruurtiisii sii xukumayeen tan iyo sanadkii 905 ee taariikhda miilaadiga markii uu dowladdii u dambeysay inqilaabay amiir mansuur bin al caamir.
qoyska calawiyiinta ee dalka Morocco xukuma ayaa xukunkaasi soo hayay muddo 352 sanadooda waana qoys ku nasabtirsada amiirkii muuminiinta Ali bani Abi Talib waxaana dawladda ugu horeyn aasaasay Mawlaa'i Shariif sanadkii 1664 iyadoo xukunkooduna yahay ka ilaa maantadan ka jira dalka Morocco. qoyska Cabbaasiyiinta ayaa xukunkoodu soo dhisnaa muddo 508 sanadooda waana saldanadii labaad ee islaamka xukunta waxayna ku abtirsan jireen mid ka mid ah nabiga adeeradii Cabbaas bin Abdul Muttalib waxayna sanadkii 750 taariikhda miilaadiga xukunka ka tuureen qoyska Bani Umayya. khaliifkii u horeeyay ee dawladda Cabbaasiyiintuna waxa uu ahaa Abu Cabbaas Abdullah Abu Muhammad waxayna soo dhisnaayeen muddo 5 qarni ah ilaa ay ku duntay weerarkii Mongooliyiinta. saldanadii ugu waqtiga dheereed waxay ahayd saldanadii Cusmaaniyiinta oo dhisnayd muddo 623 sanadooda waxayna ahaayeen qoys boqortooyo oo soo xukumayay khaliifadii afraad ee dawladda islaamka ahaydna dawladii ugu dambeysay ee khaliifada waxaana sanadkii 1299 aasaasay Sultaan Cusmaan al-Awwal oo ka soo jeeday qabiilka Qaa'iya ee dalka Turkiga waxayna socotay muddo 623 sanadooda iyadoo xukumaysay masaafo ballaaran oo ka mid ah qaaradda Yurub iyo inta badan dalalka bariga dhexe waxaana soo maray 730 suldaan ilaa markii ay ku daciiftay dagaalweynihii koowaad ee dunida kadibna ay duntay sanadkii 1922 xilliga oo la aasaasay jamhuuriyadda Turkiga ee maanta jirta.